Mugera oo hawshan wax badan ka soo qabtay. Good to have you, Solomon. Thank you. Yeah, thank you. Could you tell us why this event is so significant for our audience in general and for the audience of Africa? The BBC is coming closer to the audience. The BBC is coming closer to the source of the story. The BBC wants to identify with people's lives and experiences. This is the reason the BBC is investing so much in Africa, in the facilities we are seeing at the Nairobi Bureau. It is investing in the launch of new language services. In addition to saying Swahili service and Somali at the Bureau, we now have Amharic, Afan Oromo, and Tigrinya. And this is because the BBC wants to get closer to the audience. Solomon waxa uu yiri arrimahan xafiiskan furitaankiisa waxa weeye mid looga gol leeyahay in dadweynihii loogu soo dhawaado oo adeegii BBC-da loogu soo dhaweeyo waxaana uu sheegay in BBC-da luqado dheeraada ay soo kordhisay oo gobolka looga hadlo. Solomon, in the next 4-5 years, where do you think BBC will be? This now will depend on quite a number of factors. Number one, the audience. If the audience feels we are serving them well, the audience will stick with the BBC. They'll want to identify with the BBC. And number two, it is the BBC staff or employees like you, Lamani. People are going to be looking at you and saying, how do you well identify with your audience and your audience needs? And how well do you tell the story? And as a BBC person, you and I, we need to always make sure we are professional, we are independent, we are impartial, we are doing great journalism for the audience. Thank you very much, Solomon. Good to have you. Thank you. Yeah, thanks a lot. Solomon waxa uu noo sheegay in loo baahan yahay in dadka baahidooda ay soo gudbiyaan. Su'aashan weydiiyay waxay ahayd 4 ama 5 sanadood oo hadda kadib ah BBC-da halkay gaari kartaa ayaad filaysaa. Marka wuxuu qaabka uga jawaabay waxa ay ahayd in dadweynaha loo baahan yahay maadaama dhageystayaasha ayaga loo adeegaya ay yihiin inay soo gudbiyaan waxyaabaha baahidooda ah iyo sidoo kale in anaga ku dheerno maadaama aan saxafiyiin nahay aanu dadweynaha maadaama aan uga dhownahay saxafiyiinta kale oo dadweynaha Soomaalida aan la hadlayno inaanu ogaan karno waxa ay tahay baahida dadkeenna oo maxaan ku iraahdaa kadibna aan qaab mihnad saxafiyeed leh aan dadka wax ugu gudbin karno. kaas waxa waa Solomon Mugera aad ayuu u mahadsan yahay. Cabdullaahi Cabdi Sheekh ayaa la joogay isagana oo ah madaxa laanta af Soomaaliga BBC hawshan wax badan ka soo qabtay run ahaantii ilaa iyo xafladan maantay. Cabdullaahi laamihii kale oo dhan halkan la joogaa maca Soomaaligi markaan ku darro hawshan Afrika oo dhan ay maanta u dabaaldegayso oo la leeyahay BBC-da hooygii labaad waxay ka dhigatay qaaradda Afrika. Soomaalida maxay uga dhigan tahay? wax weyn ay nooga dhigan tahay runtii maxay yeelay meesha laga dhigay waa Nairobi. Soomaali badan ku nool ama qaxooti ha noqdeena ama arday ha noqdeena ama Soomaalida Kenya haatan ka tirsan ha noqdeena. marka waxay anaga way noo soo dhawaatay BBC-dii Soomaaliya oo dadka ugu badan ay ku sugan yihiin in dhageysta waatan daris ay nala tahay. marka wax weyn ay noo tahay xarunta cusub haddii aad aragtidna qayb dhan ayaa nagala siiyay oo anaga aan fadhinaa qolalka shirarka mid aan nagula magac daray Muqdisho haddii loogu magac daray dabcan dhul Soomaaliya loogu magac daray. marka wax badan anaga maartay ay noo soo kordhinaysaa shaqaalaheennina aad ay u kordheen runtii markaan imaanayay 5-6 sano ka hor 3 qof aan ugu imid haatan 20 iyo dhowr ayaan maraynaa waxaan rajaynayaa inaan sii kororno. marka anaga wax weyn ay noogu dhigan tahay koritaankana ma aha oo kaliya Soomaalida Kenya iyo ma aha kaliya macal dad kale adiga ku jiro oo meel kale nooga yimid Faaraxow oo Muqdisho nooga yimid. marka dad badan noogu soo kordhay dadkaas oo dhan. marka waxaan rabnaa kuwa kalena waa keeni doonaa way nagu soo biiri doonaan. arrintan farxad weyn ay noo tahay in BBC-dii maadaama dhageystayaal badan oo ilaa 50 milyan kor u dhaafaya ay Afrika joogaan oo laanta af Soomaaliga oo kaliya markii la isku dara bogga internetka iyo Facebook iyo raadiyaha 2 milyan 5-6 milyan ay toddobaadkii nagala socdaan. marka arrin aad u wanaagsan waaye oo rajo idadiila iyo rajo weyn u leh ummadda Soomaaliyeed. maadaama la yiri BBC xafiis waxay furatay cusub oo ah xafiiska ugu weyn adduunka oo maanta 350 qof dad gaaray ay ka shaqeeyaan waa wax cusub oo BBC ku soo biiray. laanta af Soomaaliga ee BBC maxaa laga fili karaa inay ku soo biiraan? wax badan nagu soo biiray waad aragtay idaacadaha qaar kamida Nairobi ay ka baxaan haatan idaacada subaxii Nairobi ay ka baxdaa idaacada duhurkii Nairobi ay ka baxdaa gabi ahaanba Faaraxow qaybta oo
website-ka iyo social media adiga runtii aad sida wanaagsan u hogaamisid ayadana Nairobi ayaa intayda badan laga sameeyaa marka wax badan aan ugu soo kordhay wax badan waa filaynaa arintanna waa arin aad u wanaagsan aan leenahay xafiiskanna waa xafiis maaragtay rajo weyn iyo sharaf weyn inoo ah waxaan rajaynaynaa in tani ay noo noqoto fursad aan ugu dhawaanayna dhagaystayaasheenna kuwa Kenya jooga kuwa Soomaaliya jooga kuwa Ethiopia jooga kuwa Djibouti jooga dhammaantood aan leenahay waan ugu dhawaanaynaa waxaan rajaynaynaa in dhagaystayaasha tan ay u noqoto fursad ay uga faa'iideystaan sidii ay wax uga bedeli lahaayeen ama fikirkooda ugu soo biirin lahaayeen hawlaha aan ka wadna laanta af Soomaaliga ee BBC-da maxaa yeelay waxyaabaha annaga aan sameynayno waxaan u sameynaa dhagaystayaasheenna waxaan jecelnahay in aan ogaana fikirka ay naga qabaan dhagaystayaasheenna inay noo sheegaan meelahan iska saxayna inay nala socodsiiyaan halka ay tahay inaan iska bedelna in maaragtay ay wax nagu soo biiriyaan ayagana ma rabno oo kaliya xiriirka aan la leenahay dhagaystayaasheenna inuu noqdo xiriir ah aniga bas wax ku sheegaya waxaan rabnaa xiriirka inuu noqdo xiriir aan wada shaqaynayna oo aan fikir isdhaafsanayna oo iyagana fikirkooda ay noo sheegayaan annagana warkaan ahayn aan u sheegayna sidaas darteed ayaa haatan dhagaystayaasha fikirka Facebook noogu soo gudbiya aan idaacadda uga sheegnaa fiidiyowyada qaar WhatsApp noogu soo diraan qaar waxay samaysteen group la dhaha BBC Somali audience ama listeners oo dhalinyarada runtii nagu taxan oo Maxamed Saalax iyo Saxardiid Xaashi Ardaale iyo niman Sayid Usmaan iyo niman aad active u ah oo aad u firfircoon oo wax badan nagu soo kordhiya talana nagu soo kordhiya fikirkoodana ka soo dhiibta dhagaystayaal kale boqolaal iyo kumanaan iyo malaayiin xusi karin magacadoodana way jiraan dhammaantood oo u mahad celinaynaa waxaana leenahay aad ayaad u mahadsantihiin waa idinku kalsoonahay waa idin jecelnahay fikirkiinana waa soo dhawaynaynaa cabdullaahi cabdi sheekh ayuu ahaa madaxa laanta af Soomaaliga ee BBC cabdullaahi waa kugu soo noqon doonaa xafladda 1 iyo 2 ma joogto faano la faray kama qodna qaybaha dambe barnaamijkana waa kullayba waa kugu soo laaban doonaa hadii uu Ilaahay idmo Bashiir Maxamed Caato waxa uu ka mid yahay wariyaasha ka howlgala laanta af Soomaaliga ee BBC raadiyaha barta internetka iyo baraha bulshada ee BBC intaba xafiiska horena waa ku soo shaqeeyay xafiiskan cusub BBC-da ay furatayna waa ku soo shaqeeyay Bashiir balada labada xafiis waa ka wada shaqeysay labada xafiis bal isbarbardhig ku samee masawir guudna naga sii farax waad u mahadsantahay marka koowaad labada xafiiskii hore ee ku soo shaqeynay adigu baad ku soo shaqeysay iyo xafiiskan cusub ee imika aan u soo guurnay runtii waxaad moodaa inay kala yihiin gelin maalinta labadeeda gelin habeenkii maalinkii oo kale tusaalahaan kale xafiiskaas wuxuu ahaa xafiis aad u yar marka la eego xuduudda shaqaalaha uu qaadi karo qalabkii ku rakibnaa iyo waxyaabo badan marka laga hadlayo laakiin xafiiskan cusub ee imika la dahfuray farax waxaad moodaa inuu waxyaabo badan kaga duwan yahay oo qalabka lagu rakibay halkan ay yihiin qalab casri ah sidoo kale shaqaalaha halkan ka howlgali kara sida lagu sheegay xafladda inay yihiin shaqaale ka badan 300 oo qof oo shaqaalaha BBC-da marka waad dareemi kartaa marka la eego baaxadda shaqaalaha qarashka ku baxay qalabka marka la eego iyo waliba sidoo kale sida loo dayactiray ama loo hagaajiyay qalabkan waxa kale iyadoo jirta faraxow in marka la eego aaladaha casriga adduunku waxay noognayn imika oo dunia casriga loo gudbay aaladaha casriga laga hadlayo dunidan iyo warbaahinta in xafiiskii hore kan marka la eego xafiiskan uu aad ugu wanaagsan yahay waagaag aad ayaad u mahadsan tahay shaqaalaha laanta af Soomaaliga ee BBC-da waxa kale oo ka mid ah saaxiibkay Cabdifataax Ibrahim Cagayare oo aad in badan codkiisa ka maqasheen idaacadda radio BBC Somali laakiin maanta aan jeclahay inaan iskiin baro inkastoo in badan oo idin ka mid ah ay yaqaanaan Cagayare xafladda maanta waa joogtaa xafiiskii horena waa ka soo shaqeysay xafiiskan cusubna dhowr bilood hadda ku shaqeynaynaa balada aragtidaada iyo farqiga u dhaxeeya labada xafiis fikir naga sii farax lamaanaad u mahadsan tahay maanta waa maalin weyn waa maalin farxadeed waa maalin dad badan oo ka tirsan shaqaalaha BBC-da hadii aan lahaayeen madaxdii sarsare hadii aan lahaayeen shaqaalaha caadiga ah ee halkan isugu yimaadeen iyadoo loo dabaaldegayo maalintan la daafuray xafiiskan cusub farax waataan ku soo wada shaqeynaa xafiiskii hore ee Longonot bartamaha townka magaalada Nairobi ku yaalay markii la isbarbar dhigo dhabaantii la isbarbar dhigi karaba aad u adag tahay waxaad dareemi kartaa qaabka kii hore uu ahaa istuudiyaasha intay la ekaayeen iyo midkan intuu la egyahay waa dabaq dhan markii qayb dhan laga qaatay iyo waliba mid kale oo haafa shaqaalaha aad u tiro batay oo ilaa 3 boqol oo aan jecelnahay waliba in shaqaale kale oo badan oo Soomaaliya nagu soo biiraan sida maalmaha la soo xaysiinayay
waxay qayb ka tahay horumarka lagu wado in BBC lagu sameeyo waxay qayb ka tahay in barnaamijyadeena aan horumarino waxay qayb ka tahay in dhageystayaasheeda aan u soo gudbinno warar tayo leh oo quality-ga marka laga fiiriyo sidii hore ka duwan maalan mararkii hore markaan joognay Longonot oo kale waxaan isticmaali jirnay teknolojiyadii hore laakiin haatan teknolojiyada casri ah oo sida madaxda ay sheegayeenba waxaa la isticmaalay ilaa 1 bilyan oo lacagta Kenyan shillinka oo loo markii dollar loo bedelo noqonayso 10 milyan oo dollarka Mareykanka marka lacagtaas oo dhan iyo sida ay meesha og tahay iyo dadka cusub ay soo galaya xafiiska shaqaalaha noqonaya ra'yada cusub ay la imaanayaan iyo annagii sii joognay oo aan rabno inaan qayb ka qaadano horumarka aad u wanaagsan tahay dhageystayaashan waxaan jecelnahay in laftigooda ay arkaan meeshaan u socono oo ah in barnaamijyo tayo leh waxbaris leh entertainment ama madadaalo leh iyo waliba wararkii caadiga ahaa intaba inaan u soo gudbinno iyagoo waliba tayo leh aad u cagayr aad ayuu u mahadsan yahay cabdishakuur casoowe waa nin dhallinyar oo BBC-da ka mid ah dhallinyarada iminka wax ku qora bbcsomali.com laakiin dhowrkii bilood ugu dambeeyey nagala shaqaynayey xarunta cusub ee maanta aan u dabaaldegayno nasiib umuusan yeelan xaruntii hore inuu ku shaqeeyo laakiin cabdishakuur meelihii hore uga soo shaqaysay warbaahinadii hore uga soo shaqaysay iyo warbaahintan ama xaruntan cusub ee BBC-da bal markaa isku fiiriso maxaa kuu soo baxaya maalintii ugu horreysay aad timid waxa maskaxdaada ku jiray maxay ahaayeen iyo wixii aad la kulantay faarax lamaan aad u mahadsan tahay waxaa sidoo kale u mahadcelinaya xuseen oo isagana kaamirada noo duubaya su-aashaas haddaan u soo laabto xaqiiqdii BBC-da waa garan kartaa hadda sida aad horeyba uga dhawaajiseen xaruntii ugu weyneed oo ka baxsan Britain ayay ka fureen magaalada tan Nairobi waana xarunta hadda isugu imaanayaan dhammaan qaybaha laamaha kala duwan ee Afrika xaruntan oo dhowrkii bilood oo la soo dhaafay aan ku shaqaynayay oo aan bahda ku wada ahayn dabcan sida la isla wada qiray anigana aan qirayo waa xarun aan la mid ahayn dhammaan warbaahinada kale hadday Soomaali ahaan lahayd iyo xitaa warbaahinada kale ee waddankan ee anigu aan arkay waa xarun aad u weyn oo qalabkeeda u dhammaystiran yahay qof walba iyo shaqaale walba uu leeyahay qalabkiisii oo dhammaystiran intaasoo stuudiyo kala duwan intaas oo qolal shirarka loogu talagalay wax ciriiri ah uusan jirin waxaa xusid mudan faarax inaan horey booqasho ugu tegey xaruntii hore ee BBC-da ay ku shaqaynaysay intaa halkan loo soo guurin laftigayga waa qiyaasi kala farqiga u dhaxeeya inkastoo aan taas ku shaqaynin middanina waxay noqonaysaa tii ugu weyneed een weligay aniga arko oo warbaahin ay ku shaqayso dabcan waa laga yaabaa in adduunyada kale ay ka jiraan xarumo kale oo sidan oo kale u waaweyn laakiin aniga experience ahaan ama khibrad ahaan waxay noqotay midii ugu weyneed ee aan arko ha ahaato dhanka qalabka ha ahaato dhanka tayada qalabkeeda qalab oo kaliya faarax waa taqaanaa saxaafadda waxba uma taro hadduu qalab tayo leh uusan ahayn marka waxyaabaha ugu muhiimsan ee ka dhawaajinta mudan waa in qalabka halkan yaallo uu yahay mid ah kii qofka suxufiga ah u saamaxayay adeeg kasta oo uu rabo in uu markaas shaqadiisa ku guto marka la isma barbardhigi karo xarimo kale iyo xaruntan sida saaxiibadayba hore ay u sheegeen cabdishakuur aad ayuu u mahadsan yahay waxaa iminkana nala joogta Rachel Akidi Okwir Rachel waxa weeye madaxa luqadaha Afrika BBC Rachel it's good to have you today we are all here to gather for the opening of our new bureau. Why is it important for this event? Yes, so this event is important because it marks a huge milestone. As you know, just a few months ago, we were under 60 people in this bureau, and we're now moving towards 300. So it's become the largest BBC bureau outside the United Kingdom. It's the largest BBC bureau in the world. So this is huge by any standards. Rachel waxa ay leedahay dhowr bilood ka hor dadkuna waa uu yaraa ilaa 60 qofood taqriiban gaaraysa ayaa la ahaa xafiiskuna waa uu yaraa laakiin maanta dhowr boqol qofood dad gaaraya ayaa maxaan ku iraahdaa shaqaynaysa marka sababta ay arrintu muhiim ugu tahay oo ahayd su'aasha aan weydiiyeyna taas ayay ahayd Rachel we have now over 300 staff in our office and my question is could you give us the estimation number of
how many of them are female? Yes, I think I can't give you a real number, but I think we are making progress, and we are almost, getting to an even number at the moment. In fact, some people were complaining and saying, "Oh, there are so many women in this place," but I think we're getting close into equal, having 50-50. Yeah. Okay. su-aasha aan weydiiyey Rachel waxay ahayd imisa dumar ah shaqaalaha ilaa 350 ah waxaan ay ugu tiri waxaan imika ku dhownahay in 50 iyo 50 yani boqolkiiba 50 iyo boqolkiiba 50 ay isla ekaadaan in the next 3-4 years. Where do you think BBC will be? I think we're going to be very far. As you're aware, the media landscape has changed. Technology has changed the media. A lot of companies are struggling with how to transform to remain relevant to their audiences. And I think this step that the BBC has taken is partly to enable us to be able to be digitally responsive for our future audiences, because at the moment most people are heading online to get their news. So I think in the next few years we probably will be more digitally, we're already on digital, but I think it will be more across, especially the older services like Somali, like Swahili, will be much bigger, and will have a very heavy presence across our target regions. Thank you very much, Rachel. Good to have you. Thank you. Thanks a lot. su-aasha aan weydiiyey waxay ahayd halka ay doonayso ama ay isleedahay BBC way gaari kartaa 3, 4 ama 5 sannadood ee soo socota waxaana u muuqda in meel fog ay gaari karto waliba waxa ay leedahay dadka inta badan maantay waxa ay doonayaan inay ka daalacdaan baraha internetka halkaas weeye halka ugu badan oo culayska la saari doono sidoo kale BBC waxa ka howlgala su-aasha aan Rachel weydiinayeen ku jirtay dumarka BBC ka howlgala oo tiradooda iminka ay soo kobcayso oo ay Rachel ku tilmaantay in ilaa 50% qiyaas ah ay doonayaan in ay gaarsiiyaan oo iminkaba lagu dhow yahay gabdhahaas waxa ka mid ah oo iminka ka howlgala laanta af Soomaaliga ee BBC oo aan jeclahay qaarkiin ay yaqaanaan qaarna ay iminka baran doonaan Bushra Nuur iyo Fawziya Cismaan Xaashi Firdawsa Cismaan Xaashi waxaan jeclahay inaan ku horeeyo Firdawsa galab wanaagsan xafladana maxaan ku raahdaa maxay balkaaga dhigan tahay maanta maadaama BBC ay u dabaaldegayso xafiiskii ugu weynaa ay ka furato meel ka baxsan magaalada London. أنا waxaan dhihi lahaa farxad gaar ah ay tahay maadaama aan ku cusbahay BBC waxaan kamid ah shaqaalaha ku soo biiray BBC waxaan dhihi lahaa waxaan ilaa fursad weyn ay tahay inaan ka howlgalo meel 300 oo qof iskugu imaanayaan waad fahmi kartaa xirfadaha meesha isku keenay marka waxaan dhihi lahaa faa'iido gaar ah ay leedahay maxaa yeelay waxay dadkaas dhamaalo waxa la kala faa'iido waxa ka baranaysid waxaan dhihi lahaa waa xafiiska ugu fiican oo aniga hadii la Firdawsa aan ka shaqeeyo aan u xulan lahaa inaan ka shaqeeyo adduunka okay ka gabar ahaan marka barbar dhigto shaqooyinka gabdhaha kale ay qabtaan ay ka shaqeeyaan meelaha ay rag joogaan iyo xafiiska BBC-da oo rag iyo dumar la wada shaqeeyo baladama sawir ka bixi haddii aan dhaho aniga meel horaan ka imaado ka shaqeyn jiray BBC marka imaado waxaan arkay waa meel zaid lagu soo dhaweeyo dumarka dadka la shaqeeyo zaid ayay u soo dhaweeyaan dumarka waa la qadariyaa xirfadooda waa la halkeeya hadda aniga waxaan ahaa gabadha kaliya ka shaqeysa dhinaca digitalka ee BBC Somali waxaan dhigaa sida dad dhalinyarada la shaqeeyo sida ay soo dhaweeyaan iyo qaabka isku la shaqeeyno weligay ma aysan dhig waxa ma qaban kartid iyo waxa ma sameyn kartid iyo wax kasta waxay dhahaan dhiirigelin ayay iga siiyaan waxyaalaha aan sameyn karo inaan ku dhiirido aan sameeyo marka waxaan dhihi lahaa waa meel fiican oo bulshada dadka aniga dhalinyarada aan camal ah oo xirfado qabaan oo rabaan inay soo bandhigaan meesha u wanaagsan ay ku soo bandhigi lahaayeen inay tahay BBC soo Firdawsa aad ay u mahadsan tahay Bushra Nuur Maxamed waa wariye codkeedana raadiyo wax badan ka maqasheen iminkana BBC laanteed af Soomaaliga u qaabilsan dhinaca qorsheynta haday noqon lahayd raadiyaha iyo haday noqon lahayd barta internetka iyo baraha bulshada intaba bulshada galab wanaagsan xafladan aan joogno maantay iyo dareenkaaga sidoo yahay marka hore والله هذا مفرحسنا هاي وحي عن شيء لها ضدك يجوه رياش شيء ماشان نتهاي معنا حفيزك وجوينا أي BBC كفرته قاب كبحسن لندن مركا هذا مفرحسنا هاي إن دمر أهان معناه أدنى لو تحقلنا أيو هذا مفرحسنا Firdawsa waxay tilmaantay in aysan dareemin yani in gabarnimo
ay dareemayso oo isleeda meesha waa meel rag keliya adiga dareenkaas ma la qabtaa Firdawsa markii hore Soomaalida inteeda badan dumarka way xishmeyn jirtay marka wixii Soomaalida lagu yaqaanay baa la hirgeliyay marka aad ugu faraxsanahay taasna sidee dareemaysaa marka aad la shaqaynayso dad qowmiyada kala yimid ama ha noqdaan Kenyan ama Afrikaan kale ha noqdaan ama European ha noqdaan maxaad dareemaysaa oo kala diimaa oo kala af ah oo kala dhaqan ah BBC marka aad joogto cadaan ahaw madow ahaw wax walba tahay BBC dadku way u wada siman yihiin macnaha hada dumar tahay hada rag tahay shaqadaada baa macnaha hadlayso maahina waxa tahay ma hadlaayo iyo jinsiyadaada waxa tahay xafiiskan cusub bushra xafiiskii hore waa ka soo shaqaysay xafiiskan waa ka shaqaysay waxaan nahay dad muslim ah maxaad dareemaysaa tusaalaan meelaha lagu tukado kale iyo aad baan loo tixgeliyay waagii hore xafiiskani hore ma lahayn meel lagu tukado hadda xafiiskan waxa uu leeyahay goob lagu tukado waxa uu leeyahay macnaha goobo anaga gooni noo ah Soomaalida gooni u ah Soomaalida ay wada fariisato marka waxaan dareemayaa inay yihiin maalin iyo habeen macnaha maalin iyo habeen qof kala macnaan karo inuusan jirin ma u maleynayo laakiin waxaan aad u dareemayaa macnaha in aad loo tixgeliyay diin ahaan Soomaali ahaan Soomaalida waxa la dhahay inta badan waxay jecel yihiin inay isku meel ku noolaadaan marka tiina waan loo fuliyay hadda isku meelan aan joognaa waan ka wada shaqeynaa wadaag bulsha aad ay u mahadsan tahay galabtay xafladan oo wali ka socota magaalada Nairobi waxaan jeclaan lahaa inaan xoogaa yar idin faahfaahiyo ama aan idin sharaxo waxyaabaha ama hawlaha ay BBC-da qabanayso gaar ahaan xafiiskan cusub waxyaabaha yani hawshiisa ay tahay xafiiskan cusub waxa uu kulmiyay luqado ilaa iyo ugu yaraan 5 luqadood ah luqado kalena waa ay ka baxaan sida Ingiriiska waxaan jeclahay inaan hadda idin tuso luqadahaas kuwa ay yihiin boorka halkan ku dhagan waxa ku qoran magacyada luqadahaas waxaan ka bilaabaynaa luqadda afaan Oromo waa afka ay ku hadlaan ilaa iyo 40 milyan oo qof dad gaaraya oo ah qowmiyadda Oromo ah dadka ugu tirada badan gobolkan geeska iyo bariga Afrika waxa kale oo xafiiskan laga sii dayn doonaa ama laga maamuli doonaa luqadda BBC Afrique oo iyadana looga hadlo waa afka Faransiiska inta badan dhageystayaasheedu waa Afrikada galbeed laakiin dhageystayaasha qaarkood wararka halka waxay uga imaan doonaan magaalada Nairobi waxa kale oo halkan laga tabin doonaa ama laga tabiyaaba iminka luqadda Amxaariga waxaana luqadaas ay kamid tahay luqadaha looga hadlo wadanka Ethiopia waxa kale oo luqadaas kamid ah luqadda Gahuza waa luqad looga hadlo gobolka harooyinka waaweyn oo ah wadamada la isku yiraahdo ama wadamada la yiraahdo Burundi iyo Rwanda iyo qaar kamid ah ama qayb kamid ah wadanka Jamhuuriyadda Dimuqraadiga ee Congo sidoo kale Hausa iyo Igbo waxa weeye laba luqadood oo waaweyn oo laga hadlo Nigeria laakiin qaar kamid ah barnaamijyadooda waxa looga tabinayaa magaalada Nairobi inkastoo xafiis weyn uu ku yaalo magaalada Abuja luqadda Pidgin waa luqad looga hadlo wadanka Nigeria oo ah luqad af Ingiriiska ah oo laakiin af Ingiriis si siloon loo dhigayo ay ku hadlaan dhalinyarada waliba dadka u badan ah wadanka Nigeria sanadkan gudihiisa ayaana BBC bilowday ilaa iyo 12 milyan oo qof dad gaaraya ayaan ku hadla luqadda Soomaaliga inta badan barnaamijyada iminka waxa ay ka yimaadaan magaalada Nairobi gaar ahaanna bbcsomali.com iyo baraha maxaan ku radaa internetka gaar ahaan Facebook iyo Twitterka iyo Instagramka intaba toos waxa looga maamulaa oo ay toos maxaan ku radaa uga yimaadaan magaalada Nairobi Sawaaxiliga waa luqadda ugu badan ee looga hadlo wadamadan Kenya Uganda Tanzania Jamhuuriyadda Dimuqraadiga ee Congo Rwanda iyo Burundi qaybo kamid ah sidoo kale Tigrinya waa luqadda afka Tigreega iyadana idaacadeeda sanadkan ayaa la bilaabay waxaana toos ay uga timaadaa magaalada Nairobi idaacadda iyo barta internetka iyo sidoo kale baraha bulshada luqadda Europa waxa weeye iyadana luqad looga hadlo wadanka Nigeria iyo wadamada u dhow sida wadanka Benin oo kale dad aad u fara badan ayaa ku hadla oo malaayiin ah laakiin barnaamijyadeeda qaarkood waxa ay ka yimaadaan wadanka Kenya marka xafiiskan waa xafiis maxaan ku raraa shaqada uu qabanayo
ay tahay shaqo aad u baaxad weyn waxaa intaas dheer luqaddii afka ingiriiska oo ah luqad 24 saacadood BBC-du ay sii dayso oo aan si joogsi lahayn uga baxaysa waxa kale oo halkan iminka toos looga sii daynayaa barnaamijyo BBC ay soo kordhisay oo ah barnaamijyada ganacsiga barnaamijyadaas ganacsiga waxa weeye kuwa hadda kadib toos qaaraddu ay u daawan doonto maalin walba isla markaana ay kala socon doonto baraha internetka haddaba dhegaystayaal waxaannu iminka ku sii dhowaanaynaa goobtii xafladda oo music badanna uu ka socdo oo aan isleeyahay maqalkuna waa ma fiicna oo waa uu liitaa hase yeeshee waxaan jeclahay inaan jawiga idinla qaybsanno oo aan idin tusno bal jawigu sida uu yahay oo aad aragtaan dadweynaha shaqaalaha BBC-da martida maxamed deeq cabdalla oo ah madaxa SBC oo ka mid ah dadka maanta nagala qayb galay xafladda BBC-da ay ugu dabaaldegayso furitaanka xafiiska ugu weyn adduunka marka laga yimaado magaalada London maxamed deeq waa ku mahadsan tahay inaad nagala soo qayb gashay xafladdan dareenkaagu waa sidee aad baad